in dhaqankeenu suubanaado culimada markaa waa inaan dhageysano waa inaan u dhaga nuglaano wanaaga ay nagala hadlayaan waa wax adduunkeenana wax taraya aakhiradeennana u wanaagsan markaas inagama gayaan inaynu hadal xun ku nidhaahno culimadu waa warisatul anbiyaa qiimay bulshada ku dhex leeyihiin wax weynna way bulshada taraan calanka jamhuuriyadda Soomaaliland dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland baa qeexay waana calankaas xafiis kasta iyo meel kasta ka babanay fariinta shacbiga reer Soomaaliland aanu diray waxa weeyaan inay diyaar garoobaan maalintooda weyneeyaan waxa waraysi kooban ka qaadi doona wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Khadar Xuseen Cabdi oo halkan iskuulka Gandhi asaaka yimid kana tirsan guddiga ay timay ugu horreyn macallin wasiir soo dhaw aad iyo aad baad mahadsan tahay Luqmaan aad baan ku salaamaya adiga iyo dhammaan bulshada kugu xidhanba waan ku faraxsanahay waad mahadsan tahay macallin wasiir muddooyinka ugu dambeeyay waxa jirtay qabanqaabada ay timay baad wadeen halkee mar saartay qabanqaabada ay dhimay aad bay u fiican tahay meel wanaagsan bay noo maraysaa shacbiga reer Soomaaliland waa u diyaar inuu maalintooda ay leeyihiin u weyneeyaan inay maalintooda xusaan insha Allah waana xusayaan waana u soo baxayaan waxaan ku faraxsanahay in sanadkan ardayda dugsiyadu ay si fiican oo qiimo leh ay maalintan weyneeyeen macallimiinta iyo maamulayaasha dugsiyadana runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa macallin wasiir waxa jirta culimo hadlaysay muddooyinka ugu dambeysay ama calanka ka hadlaan ama xuska iyo isdhexgalka ragga iyo dumarka ka hadlaan arinta guud ahaan maxay idinka qorshay run ahaantii wasaaradda diinta iyo awqaaftuna waxa ay soo saartay directives iyo talooyin bay soo saartay culimadu waa culimadeennii waxay hadiyo habeen bulshadeena u dhex taagan yihiin uga hadlayaan danahooda uga tagaan in mujtamaceenu wanaagsanaado in diinteena iyo akhlaaqdeenu ay kor ahaato in dhaqankeenu suubanaado culimada markaa waa inaan dhageysano waa inaan u dhaga nuglaano wanaaga ay nagala hadlayaan waa wax adduunkeenana wax taraya aakhiradeennana u wanaagsan markaas inagama gayaan inaynu hadal xun ku nidhaahno culimadu waa warisatul anbiyaa qiimay bulshada ku dhex leeyihiin wax weynna way bulshada taraan maalinta ay adkaatana culimadu waa dadkan badbaadiye ee dhaqankooda iyo akhlaaqdooda badbaadiya ummadna jiritaankeeda asaas waxa u ah dhaqankeeda iyo akhlaaqdeeda arinta calankeeda dhawaan soo hadal qaaday ma sidee kula tahay in la ilaaha illallah laga saaro kuwa la isticmaalayo dhulka ku dhacay calanka jamhuuriyadda Soomaaliland dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland baa qeexay waana calankaas xafiis kasta iyo meel kasta ka babanaya wuxuun baynu rabnaa in aynu ka fogaano wixii dhibaato u geysanaya kelimatu tawxiid laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah waa kelmad qaali ah maxaan ku dhahdaa aan erayo meel ku qoran u nahayn macno weyn leh mas'uuliyad weynina ilaalinteeda iyo korahaanshiyaheeda ay naga saaran tahay tan ka hadlayaana taasun weeye qof walbana sidoo u xifdii kara kelmadaas inay kor ahaato waajib gaar ah ka saaran annagana maadaama mas'uuliyiintii nahay waajib gaar ah naga sii saaran sidii aan u ilaalin lahayn ugu dambeyn waa maxay fariinta dulsa shacbiga fariinta shacbiga reer Soomaaliland aanu diray waxa weeyaan inay diyaar garoobaan maalintooda weyneeyaan waa maalin runtii qiimo fara badan Soomaaliland kule waa maalin qaran waa maalinta wada jirka waa maalinta midnimada waa maalin aynu u baahanay inaan halka u sareysa ka soo degin waa maalin aan u baahanahay dunida iyo cid walba inaan tusno resilience-keena adkeysigeena himiladeena iyo sidaan ugu taaganahay wada socodkeena iyo wada jirkeena dawladnimadeena iyo siday u adag tahay waa maalin weyn waxaan rajaynayaa shacbiga reer Soomaaliland hadii la yiraahdo inay fariinta xambaaraan oo ay maalinta weyneeyaan oo wada jirkooda muujiyaan oo dunida iyo cid kastaba ay tusaan ummadnimadooda iyo qarannimadooda wasiir Khadar Xuseen Cabdi wasiirka madaxtooyada Soomaaliland luqan siiso thank you